bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan daawadayaal qodobada wararka TV caawa idin haya waxaa ka mid ah askari ka tirsan ciidanka booliiska oo dil ka geystay Muqdisho dagaal laga cabsi qabo inuu ka qarxo Muqdisho amisom oo sheegtay in xubno ka tirsan al-shabaab ay ku qabatay gobolka Shabeellada Hoose madaxweyne farmaajo wafdi oo hogaaminayo oo ku laabtay Muqdisho kadib boqosho uu ku tagay Addis Ababa iyo Sacuudi Carabiya iyo wargeys ka soo baxa Kenya oo shaaciyay ballan dawladda Soomaaliya ay kaga baxday dawladda Kenya wararka dibadda wararka TV caawa idin haya waxaa ka mid ah Tunisia oo diiday in markabsiday muhaajiriin laga soo dejiyo dekedaha dalkeeda iyo madaxweynaha Iran oo sheegay in cadaadis lagu saari karin Iran wada hadal ay la gashay Mareykanka daawadayaal ku soo dhawaada warkaasi oo fidsan haddii aad ka mid tahay daawadayaasheena ku cusub barta YouTube-ka ee wararka TV fadlan subscribe barteena si aad u heshid warar iyo warbixino quseeya Soomaaliya iyo caalamka askari ka tirsan ciidanka booliiska dawladda Soomaaliya ayaa Muqdisho ku dilay nin wada ka ahaa gaari dadweyne askari la sheegay inuu ka tirsan yahay ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa waxa mid ka mid ah darawallada kaxeeya gaadiidka dadweynaha wuxuu ku dilay xaafadda Saybiano ee magaalada Muqdisho iyadoo dilka kadib uu baxsaday askariga dilka geystay qof goobjoog ah oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in dilka uu yimid kadib markii wadada oo ahaa cariiri aad u fara badan ay murmeen darawalka gaariga waday iyo askariga oo ka mid ahaa askar taagnayd bar control oo ammaanka lagu xaqiijiyo waxaana murankaasi kadib askarigii uu rasaas ku furay gaarigii bielka oo dadka ay saarnaayeen kadibna waxa ku dhintay wadihii gaariga goobjoogu waxa uu sheegay in goobta uu ka baxsaday askarigii dilka geystay iyadoo ay goobta taagnaayeen ciidamo kale oo ka tirsan kuwa booliiska oo wax ka xaqiijinaya ammaanka magaalada Muqdisho waxaa inta badan ka dhaca dilalka ay askarta dawladda u geystaan dadka shacabka sida wadayaasha gaadiidka bielka iyo kuwa mootobajaajda laakiin goobta maanta waxaa yimid saraakiil iyo ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka kuwaasoo baaritaan ku dhaqaaqay kadib dilka isla markaana raadinaya sida wararku ay sheegayaan askariga dilka geystay oo goobta ka baxsaday waxaa laga cabsi qabaa in dagaal uu ka dhex qarxo ciidamada dawladda iyo dad degan xaafadaha jaamacadaha ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa waxay sheegayaan in uu dagaal culus ka dhex qarxi rabo ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya iyo shacabka degan xaafadaha jaamacadaha sida ay xogta ku heshay shabakada wararka TV saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda oo ka shidaal qaadanaya wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya ayaa dadka degan xaafadda jaamacadaha oo u dhow Saybiano u sheegay inay isaga guuraan halkaasi muddo 7 maalin ah oo ku ekeyd maalintii shalay dadka deegaanka oo u badan askar ka tirsan ciidamada dawladda iyo ilmaha ay dhaleen ayaa arintaasi ka hor yimid waxayna xaafadda jaamacadaha noqotay goob hadda isu bedeshay furun dagaal kadib markii ay soo buux dhaafiyeen ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya oo ka soo baxay furmaha dagaalka ee gobolada Shabeellooyinka shabakada wararka TV ayaa la hadashay nin taliya oo ku sugan deegaanka oo sheegay inay ka soo baxeen furumihii dagaalka ay kaga horjeedeen al-shabaab kadib markii ay maqleen in ciidamo ka tirsan kuwa dawladda ay rabaan in dadka degan xaafadda jaamacadaha oo ah meel ay degan yihiin dad aad u fara badan ay ka saaraan oo caruurtooda ay ku jiraan taliyahaasi ayaa waxa uu sheegay in dhiigooda ay huri doonaan sida ay u badbaadin lahaayeen dadka halkaasi degan oo u badan ilmo ay dhaleen iyo xaasaskooda sida uu hadalka u dhigay waxa uuna sheegay in duulaan ay ku soo qaadeen askar ka tirsan ciidamada dawladda oo rabay in iyagu ay deegaanka degaan taasina aanu aqbali karin sida uu hadalka u dhigay waxa deegaanka ciidamada soo galay ay ka sameysteen dhufaysyo ciidan kuwaasoo qaarkood wata gaadiid dagaal waxaana dadka deegaanka ay sheegeen in 200 oo askar lagu qiyaasay ay ka soo baxeen furmaha dagaalka kuwaasoo deegaanka yimid si ay u difaacaan caruur iyo xaasas kaga sugan sida wariye ka tirsan warbaahinta wararka TV oo goobta tagay uu soo sheegay dawladda Soomaaliya ilaa iyo hadda kama aysan hadal xiisada ka taagan xaafadda jaamacadaha ee degmada Hodan waxaana arintan ay ku soo aadeysaa xilli aysan dawladda Soomaaliya wax shaqo ku qaban xarumihii hore ee dawladda ee laga saaray dadkii deganaa taliska ciidamada amisom ayaa sheegay in xubno ka mid ah ururka al-shabaab ay ku xireen gobolka Shabeellada Hoose howlgalka midowga Afrika ee amisom ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen 2 ka mid ah mintidiinta al-shabaab oo doonaya inay weerar ku qaadaan kolonyo gaadiid ah oo ka tirsan ciidanka amisom oo marayay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose war ka soo baxay amisom ayaa lagu sheegay qabashadan labadan mitid inay timid kadib markii ciidamada amisom oo marayay inta u dhaxaysan Walnaweyn iyo Baladogle ay la kulmeen miina dhulka la geliyay
qoraalka amisom ayaa lagu sheegay in miinada laga saaray goobta labada ninna gacanta lagu dhigay iyagoo damacsanaa in weerar gaadma ay ku qaadaan ciidanka amisom. markii miinada laga saarayay goobta waxaa ragga la qabtay la geeyay meel goobta u jirta 500 oo mayl kadib ayaana la saaray miinada. ragga la qabtay waxaa loo dhaadhiciyay deegaanka Balidoogle si baaritaan dheeraad ah loogu sameeyo ayaa lagu yiri warka qoraalka ee ka soo baxay amisom. amisom ayaa intaasi ku dartay in kolonyada ciidamada ah ee al-shabaab la damacsanayeen weerarka ku sii jeedeen deegaanka Balidoogle iyagoo ka baxay saldhigooda oo ku yaala deegaanka Carbiska ee isla gobolka Shabeellada Hoose. madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta dalka dib ugu laabtay kadib booqashooyin shaqo ah uu ku tagay magaalada Maka ee wadanka Sacuudi Carabiya iyo magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa sidoo kale faahfaahin kooban ka bixiyay wada hadal Addis Ababa uu kula yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya waxaana garoonka diyaaradaha ee Booli ku soo dhaweeyay Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya. wafdiga madaxweynaha ka soo kici timay magaalada Maka al-Mukarrama ee wadanka Sacuudi Carabiya halkaas oo madaxweyne Farmaajo uu qayb galay shirkii hogaamiyaasha jaamacadda Carabta iyo kuwa iskaashiga Islaamka. socdaalka madaxweyne Farmaajo ee Addis Ababa ayaa maalmihii la soo dhaafay la hadal hayay waxaana la sheegay inuu salka ku hayo qorshe uu wada Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya oo dadaal ugu jira in xal diblomaasiyadeed laga gaaro khilaafka Soomaaliya iyo Kenya. qoraal la soo dhigay barta Twitterka ee Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa lagu sheegay in madaxweyne Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Abiy ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal, iskaashiga iyo ammaanka iyo nabadeynta geeska Afrika. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa wareysi uu siiyay laanta af Amxaariga ee VOA waxa uu ku sheegay inuu xal u raadinayo khilaafka Soomaaliya iyo Kenya isla markaana uu kala kaashanayo dalalka Eritrea iyo Koonfurta Suudaan. madaxweyne Farmaajo ayaa u muuqda mid mar kale dhaxda u galay qorshaha Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed iyadoo la xasuustay in bishii Febraayo ay si wada jir ah ugu safreen magaalada Nairobi xilligaas oo Ra'iisul Wasaare Abiy uu dhexdhexaadiyay madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta kadib khilaaf diblomaasiyadeed oo sababay in safiirada labada dal ay dib ugu kala laabtaan dalalkooda. sanadkan gudihiisa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Addis Ababa u safray tiro 3 jeer waxaana la xasuustaa in madaxweynuhu xilliga ololaha uu ku jiray uu madaxweynihii hore ku eedeyn jiray safarada dalka Itoobiya. madaxweyne Farmaajo iyo wafdigiisa tagay Addis Ababa iyo Maka al-Mukarrama ee Sacuudi Carabiya ayaa isla maanta dib ugu laabtay magaalada Muqdisho. wargeys ka soo baxa dalka Kenya ayaa faahfaahin ka bixiyay ballan dawladda Soomaaliya ay kaga baxday dawladda Kenya inta aan u bilaaban khilaafka diblomaasiyadeed ee ka dhex jira Soomaaliya iyo Kenya. wargeyska Sunday The Standard ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa shaaca ka qaaday waxa uu ugu yeeray xudunta xiisadda diblomaasiyadeed ee dawladda Soomaaliya iyo Kenya. sida laga soo xigtay warbixin uu qoray joornaalka bu'da iska qabsiga ayaa ah ballan ay horay u qaaday Soomaaliya oo ku aadan in ay dib u eegayso falalka ay shirkad caalami ah ka sameysay sheegashooyinka Kenya ee xuduudda badda. wacadkaas ayaa waxa qaaday wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawd inta lagu guda jiray kulan uu bishii Abriil 3 la yeeshay dhigiisa Kenya Marwa Monique Juma. yabooha uu Cawd siiyay Juma ayaa ahaa in dawladdiisu dib u eegis ku sameyn doonto dhammaan waxyaabihii ay shirkadda Speedrum Go ku soo bandhigtay shirkii shidaalka Soomaaliya ee London ee 7 Febraayo ee 2019. arrimaha shirka lagu soo bandhigay ee dawladda Kenya ay ka carootay ayaa ahaa qariirada goobaha kheyraadka dabiiciga laga helay. kulankaasi ayaa ahaa midkii ugu horeeyay oo caalami ah ka oo lagu suuq geynayay shidaalka Soomaaliya, balse Kenya waxay u qaadatay inuu ahaa mid lagu iibinayo xirmooyin shidaal oo ku jira dhulka ay sheeganayso. xukuumadda Nairobi ayaa xilligaasi codsatay in warbixinta shirkaddan oo Norway laga leeyahay laga saaro qariirada qaybta ay muran ka gelisay taa oo ay ku sifeeyeen duulaan qariireed. ballanta uu Cawd shirka ku qaaday balse laga qariyay warbaahinta ayaa qayb ka ahaa heshiis ka kooban 5 qodob oo ay ku jireen in safiirada dib loo soo celiyo, isu furidda isgaarsiinta iyo dagaalka al-shabaab. qoraal uu Cawd u soo diray Kenya 30 May
ayuu su'aal ku geliyay in Kenya ay fulinayso heshiiska isagoo sheegay in dawladda Soomaaliya ay dib u eegayso falalkaasi balse aysan qayb ka ahayn go'aanka xukuumadda. Is-afgaradkaasi ayaa yimid 2 bilood kadib markii Kenya ay soo erisay danjarihii Soomaaliya ee Nairobi iyadoo Muqdisho ku eedeysay ku xadgudubka dhulkeeda waxayna dalbatay fasiraad. Tallaabadaasi ayaa muujinaysay inay carootay Kenya inkastoo aysan ahayn tii ugu dambeysay waxaana xigtay joojinta duulimaadka tooska ee Muqdisho iyo Nairobi mas'uuliyiin laga soo masaafuriyay dalkeeda xayiraadda socdaalka iyo beegsiga Soomaalida. Dhacdooyinkaas oo idil oo ay Kenya u qaaday si ay u cadaadiso Soomaaliya dibna ula soo noqoto dacwadda badda ayaa xukuumadda Muqdisho waxa ay jawaabteeda ku soo koobtay walaac iyo falal ka soo horjeeda darisnimada. wararka dibadda wararka TV caawa idin hayna waxaa ka mid ah maamulka dalka Tunisia ayaa hor istaagay in 75 muhaajiriin ah oo laga soo badbaadiyay badweynta ay soo galaan dalkaasi sida laga soo xigtay koox qaabilsan xuquuqul insaanka iyo kabtanka wada markabka soo badbaadiyay dadkaasi. muhaajiriintaasi iyo dooni ay la socdeen oo dul sabeynayay biyaha caalamiga ee badweynta kadib markii ay waxyeello soo gaartay matoorka doonta ay wateen waxaana halkaasi ka soo badbaadiyay markab laga leeyahay dalka Masar sida maalinnimadii shalay uu sheegay kabtanka markabkaasi. kadib markii mas'uuliyiinta Talyaaniga iyo Malta ay diideen dadkaasi ayaa shaqaalaha markabkii siday muhaajiriinta ay u socdaaleen dekedda koonfurta Tunisia. dawladda Tunisia ilaa hadda ma bixin wax jawaab ah oo ku aadan in dadkaasi la ogolaaday iyo in laga soo dejiyo dekedda waxaana kabtanka ama naaquudaha uu sheegay inaysan haysan biyo iyo cunno ku filan. dadkaasi la badbaadiyay oo Talyaaniga iyo Malta ay dideen ayaa waxa isugu jiraan 64 qof oo Bangladesh ah, 9 Masaari ah, 1 ruux oo Moroccan ah iyo 1 qof oo Suudaan ah kuwa oo la tilmaamay inay ka soo baxeen xeebaha Suwara ee galbeedka dalka Liibiya. bishii hore 60 muhaajiriin ah oo badankood ay yihiin Bangladesh ayaa ku geeriyooday xeebaha dalka Tunisia. madaxweynaha dawladda Iran ayaa sheegay in dawladda Iran aan cadaadis lagu saari karin wadahadal ay la gasho wadanka Mareykanka. madaxweyne Xasan Rouhani ayaa soo jeediyay in laga yaabo in Iran ay doonayso inay wadahadal la yeelato Mareykanka waa haddii ay Mareykanku ixtiraamaan sida uu hadalka u dhigay balse waxa uu sheegay in aan cadaadis lagu saari karin Iran wadahadal ay la gasho Mareykanka. Iran iyo Mareykanka ayaa bilihii u dambeeyay qarka u saarnaa iska hor imaad sanad kadib markii Mareykanku uu ka baxay heshiiskii caalamiga ah ee u dhaxeeyay Iran iyo wadamada awoodda leh ee caalamka ka oo lagu xadiday mashruuca nukleerka ee Tehran waxaana markaasi Iran laga qaaday cunaqabatayntii saarnayd. Washington ayaa sanadkii hore dib ugu soo rogtay Iran cunaqabataynta waxaana uu Mareykanku dhammaan wadamada kale ugu baaqay inay joojiyaan shidaalka dalka Iran laga soo dhoofiyo. toddobaadyadii u dambeeyay Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay inay suurtagal tahay iska hor imaad military oo dhexmara labada dal kadib markii Mareykanka ciidamo dheeri ah uu geeyay bariga dhexe. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in heshiiskii nukleerka ee sanadkii 2015 uusan ahayn mid aan aad loo adkeyn wuxuuna Iran ku qasbay in heshiis cusub ay la galaan. qaar ka mid ah saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay inay suurtagal tahay inuu bilowdo wadahadal cusub oo u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran. guud ahaan daawadayaal warkii waad kala socoteen wararka TV caawa waa naga inta